بسم الله الرحمن الرحيم دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jirta inantii daada yareyd ee lagu xadgudbay deegaanka Galdogob xaaladaada bal guud ahaan iga waran waxaad iga warantaa dhalinyaradan kugu xadgudubtay sida sheekadu u dhacday yani maxaa idinka dhaxeeyay ma argos baa idinka dhaxeeyay ma horay isku dayeen inay maxaa kugu xadgudbaan maan aqoon hal mid baan ka aqaanay qolada dhan waa wax iyagu ila samaayeen iyo qalaabaha igu qabeen ila maleynaya waan gartay nimanka qoladan dhowr jeer baan dagaalmay marka suuq ama meel la ii diro ama isoo dibadal jiraan inay damcaan in ay kaxaystaan marka ilaa way iga badbaadin hadda ka hor inay xadgudbaan qaataanka waxa iga badbaasay nin baa iga badbaasay oo maxaa la dhahaa deegaanka adagneyn oo Galdogob waan gartay hore isku dayeen inay ku qaataan inay qaataan badaceen marka uusitay baa gacantii fadhiso marka tureydii waa meelaha garabka ka gashay marka colaad weyn bay qaban ninkaan ninka ka dambeeyay salkayga inay maxaa la dhahaa fideoga aragteen maxaa la dhahaa kusigaa dilka lagu sameeyo marka colaad iyagu qabeen oo anigu aanan waxaan ku sameeyey aanan garanayn weye nabarada lagu gaarsiiyey maxaa ka mid ah nabarada lagu gaarsiiyey waxaa ka mid bugskaan nabarka iyo maxaa la dhahaa dil ay i geysteen iyo sirka oo maxaa la dhahaa ceesin iyo wax igu sameeyeen iyo sintoo layga taray sintoodii oo la taray intaasa ka mid a dhibaatada i geysteen nimanka iyo kursigayga aniga kulligood igu xadgudbeen mid baa mar aniga si doon iga yeeriya kursigoodna mid idhaasay ma laha maxaa dhahaa dilka iyo kursiga iyo sadeexada iyo fideogayga lasaafiyo waxaas iskooda in ay wax ila harin ma laha nooga waran bal bilowgii ilaa dhammaadkii sheekadu siday ku dhacday aniga waxaan ka sakaday guriga aniga iyo gabar saaxiibteeda oo isaga saaxiibanahay marka gabar kadiisa muqdisho socotay baan asalaameyn oo dhaweynay marka gabadhii markaan kasoo laabanay soo laabanay wadada maxaa la dhahaa laba nin baa nala doosmaatay waynala hadleen anigana teleefon baa dad kale uhayay wayla hadleen markaas waxaan idhi naayaada maxaa nala hadla naayaada markaas waxaan idhi dibjiri iga beer anaa waxaan ku yidhi dibjiri oo iga beer waan dhaqaaqay oo si dhaqaaqa hawlahooda musibisa dhaqaaqay maya dibjigeeda iyo dagaal ay bilaabeen iyo cay meesha aan ka dhacday marka dagaalkii aniga ninka dagaalay meesha taasay dagaalkii bay ka faa'iidaysteen nooha maxaa lahaa jinsan oo arkan ku daakasanayd waxaan maleynayaa noohada inay maxay ahayd oo nooha meesha iska daakasano oo qofki baa kasadeen laakiinse nooha waxay ahayd dibjiray oo wax naloo soo diyaariyey oo ilaa adiga maxaan kasoo baxayna ilaa maxaa la dhahaa gabadha markaan dhaweynanay oo naloo jeeday ilbaas oo waa qorshe naloo degay marka gaarigii wiilkii markaan istagaamay sisaas i qabtay kalsuud isuuray gabadha saxiibtaya baa kale damacda in ii saqbato kabacdi tuuray baasaa loo saaray iyadoo afka la qabtay anigana intii wanaha lagu dhigtay laa laga dhigtay maxaa dhahay meesha kusuuxay sirtaanka gaariga nooga ku jira baamir gaarigii noohayahaa oo شاف الناس كان عارف حوالي سنة بكرة مال بنية بنجيب ناس بعديها يبي تدون على وين مرة وين مخزون مرة وين الزرع دبنا بحس أيضا إذا نسيبنا والله يلا أكيد تروح يجد في ميوزن يبقى حدا سبحان الله السوشيال ميديا الإنجليزي وكل راعي وكل راعي waxaad iga warantaa dhalinyaradaasi miyay wax maandooriyaa isticmaalayeen markaa sida khamriga oo kale maankooda ma joogay mise waxay ahaayeen dad miyirkooda iyo maskaxdooda qaba nimanka wada xiriirayeen kale ma garan karo anigu inay khamro cabaan inay wax kale ma sheegi karo laakiinse nimankan waxay ahaayeen niman toosta oo lays caadiya oo maxaa la dhahaa
وميلكو عادي شغل ضد الآن وحالها وبالآن نقطة وعادي وحضنا ميتين وأنا من عادية. iyagu waa deegaankaasay u dhasheen magaalada joogtid magaalada soo dhasheen aniga dhowr wada macnay dhibaatada ku koronid ka daran u jirtaa oo nafta idiin soo marka ma aqaan iyo wixii dinku wixii ka baran waxaad ka warantaa adigu markii ay falkani dhaceen kugu xadgudbeen waxaa naloo sheegay inaad tagtay xagga iyo gaalkacayo maxaad go'aansatay marka adigu ماشي أنا وضع بعض ماشي ملك السودان ومال حالها هي مغالبة بالدرب ومعالها وبابية ماشي أنا وضعين ماشي نواصي يعني وصبر عليه أنا صحيت الجيش وصبره مكان صحة يعني صحي نيالي كتبه بعد الله يلي نيالي كتبه هذا تسري صحي وحا وعالي وصوح أنا وشي لما قلنا وحوين إدوين ومحاول أعلى قالوا يا كثر وصحيت واحد هذا أنا حياة من عظام الله يا وجد من الولد يعني أنا وحنا لها حالها صحيح أنا بذكر نفسي جميع أنا كان مكانه هي أول مرة قال أنا لما لها فبعدي مكان قاعد الله يرفع لي إذا بس نصحب وصاعنا طيب هاي إلا عنده إلا يحرك على مال الله والديني وأنا كنت حرك على مال الله وأنا مدري أيه ممكن نقابل من وشيء هاي الشهر مثل وصل بحال إلا يتراجع ولا أنا كنت شدلك وحنا هو من حالها يكتب ما تتراجع ولا وحنا اللي هو أبني مال سوريا يحرك على الله وحنا كنت يحرك على marka anigu waxa go'aan marka hore anigu markii inta la horeeyo waxa go'aan fiiyaa mar walba anigu waxa ku soo noqon wixii dhacay marka waxa go'aan nafsi fikrina yaasi dambe gobol ii tagay magaalada Soomaaliya waxa sidii qof adigu ma qaan wax ka sheegay marka kullu wax badan kii dhaawacay dawladda amarka iskin way waxa la tagay way aniga kaliya aabahayga soo wacay dadkayga u sheegay أبي يقدر يسوي هو يوم وين أبى وعي أبى يقدر يسوي هذا اللي يقدر عليه أبى وحشي صحف لا أنا شيء بحالها وهو شيء جوا شيء لم يقدر يسوي أبى يقال وعي بعد واحد بريء واحد خصنا واحد المسلمين لو واحد بدي أبدي شيء وكسر لهم أنا ما قاني بعد نجاره إذا سوري دي بقصصتي وأنا فريسان واي وأنا فريسان واي كبعد ذلك هذا الشريرة أنت بدور حيث يتصحب شريرة على قوة تقبل هذا السرين إلى كل شيء كبعد ذلك اللي يجيني هذا الكتاب اللي عندنا اللي كان waxaad ka warantaa walaal waxaad ka warantaa muuqaaladan imika lagu faafiyay Facebook ama baraha bulshada ay ku wada xiriirada guud ahaan siday ku soo baxeen maadaama falka noo sheegay inuu dhacay horaantii bishii 12 ee 2016 halkaan ku soo baxay aniga markaan u sheegay markii fiidiyowga laga duubay naya adiga fiidiyowgan wuxuu ku noqonayaa maxaa lahaa mar walba si aan markaa aan ku baahano waxa dintaan oo sameynaysaa waxaan fiidiyowga waxa igu doonay ugu raaqayaan oo aan u sheegin oo waxba aan aan hadalladooda wax dhan aan sheegin marka aniga marka fiidiyowgiiba ilaahay ma aqaan sheeg baacanimada ilaahay baa macnaha inuu leeyahay maxaa la fiidiyowga rubba waxa ay dhexdoodii fiidiyowgii waxa uu sheegay gabadhaas oo deegaanka ah deegaanka dowladda gabadhaas islaamkaasna fiidiyowgii way faafisay muddo loo go'ay sidii ku faafisay fiidiyowgii marka daheeraha la arkay maxaad ka codsanaysaa ummadda Soomaalida أنا هذا طبعا يعني حقا يعني حتى يرجع وكا أو كفاف يجي شيء أو توح بأن ما كبحثني إذا سمعي أنا قلنا وحود من وأنا حالها فأنا هذا غير يوم أنا بس كنا وحليني شرعنا وحكوا وقبلنا على كيف أنا
كلها سرعنا وحلا بقولين رجع وايو مركي عنيقة هذا أنت شوي رجع عبد أنا وحلا يودي فجي فكر يجي وحلا يودي حالها محكمة سرعة الإسلام مركي رجع كله يجي هو بقى كتاب سامع مركي وحاول يعني حق الكردان هو بقى أول كلام في وحاس مبدين كرا مبدين كرا معناه نابن أنا مثلا كرا قبيل وعملين يعني نقول مثلا فكرة أنا لو في مثلا هذا هذا هو عملين يعني شيء وكرا قبيل وقت يعني أنا وحق الثانية يوم الصوماليين هنا هذا أنا كاتول بعدين دايو بس كان خلافان waxaa noqonaysa aniga inuu iska deenayo weliday waxay noqonaysaa xaalaha meel igu yaalla marka waxaa ka codsanaya in xaqayga laga dhiciyo oo ragga wixii lagala qaban karo lagala qabto oo xaqayga keliya laga soo dhiciyo intaasaana oo sharcada diinta islaamka wixii ku usiso oo dib hadday noqoto waa ogolahay wixii lagu uusiyo raggaas oo xaqayga soo dhicin kara ayaa codsanaya ummadda Soomaaliyeed xaqaaga insha Allah waxa weeye ayaad codsanaysaa in lagu dhayo adigu maxaad qaban jirtay ma ardayad baad ahayd daadaad waa imisa afar sano shan sano bila kazala maxamed baran jirtay maxaad qaban jirtay arday waxaan jiray sooyada markii ay kuradan iga soo imaanin deegaanka intay markaa suuqada ama meel aado oo maqaamada way soo ceshan jireen saas u dalbaan mid baa laga soo jiray marka way la tiri intii meesha ku dhimalay waa laga saara iskuulku waxaan dhihi jiray waa laga saara laakiin halka markuu intaan halka ay soo gaarin guriga waxaan jiray guriga oo shaqo waxaas ma qaban jiray aad baad maasan tahay daawadayaal taas waxay ahayd inantii Soomaaliyeed lagu xadgudubka foosha xun leh waxayna ka codsatay ummadda Soomaaliyeed inay ku garab istaagaan cadaalad inay hesho waliba in kitaabka Allah la xukumo xukunkiisa maxaa la qaato arrinkeeda loo eego aad maasantihiin intaad daawanayseen insha Allah waxa weeye aynu dhamaantiin garab istaagno walaasheen xad la socodsiinayo waraysiga anigoo Cabdi Malik Sheekh Socdo